السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دhowaada waan idin salaamay marka hore waa Faadimo Cilmi. waxaynu ka hadalnay laba qof oo ku geeriyooday iyagoo gaari ku dhex jira magaalada Hargeysa. asxaabtayda bal horta geeridu waa xaq oo qof walba uu dhimanaya noolaba waa dhinta laakiin arrinka ku dhacay labada marxuum xamse iyo waliba huda Allahu naxariiste ayaa wuxuu ahaa arrin aad iyo aad u xun way geeriyoodeen oo horta ka hadal ma leh noolaba waa dhinte cid walba way dhimanaysaa iyagana Ilaahay jannadii ha geeyo waanu u ducaynaynaa geerida iyaga ku dhacday markii la xaqiijiyay waxa markaasi la soo saaray oo dhaqaatiirtii baaritaanka ku jirtay iyo ciidanka nabadda ee magaalada Hargeysa jooga iyo waliba kooxda caafimaadku waxay tilmaameen in labadan qof ay markaasi ku geeriyoodeen neef ku xidhantay oo ka timiday gaariga xaaladan gaariga ka timiday neefta ah waxa la sheegay in gaarigu uu shidnaa maxaan ku dhahdayay uu markaa gaarigu sii daayay neeftaasi oo lagu tilmaamay inay sun tahay oo magaceeda loo yaqaano carbon monoxide loo yaqaano ayaa markaasi gaariga ay ku jireen uu soo daayay dabadeed waxaa la tilmaamay inay daaqaduhu xidhnaayeen sida la tilmaamayo dhaqaatiirtu tilmaameen wax marka calaamado lagu garto ma laha hadday qiiq tahay iyo hadday kulayl tahay iyo hadday ur tahay midna male qofku wuxuu ku dhiman karaa inta u dhaxaysa 5 daqiiqo ilaa 7 daqiiqo gudahooda maadada la yiraahdo carbon monoxide oo ka soo baxday gaarigii ay saarnaayeen gaarigaas oo excess-ku ka daloolay qaybta hoose ayaa lagu dhintaa arrinkaasi inta badan marka la eego 2% ayay ku dhacdaa dadka waxa dhacda dhacdadan labadan qof ee geeriyooday ee gaarigaasi ku geeriyooday ayaa waxa la tilmaamay in gaariga laftiisa makaaniga loo geeyay makaanigii loo geeyayna uu sheegay inuu markaasi dalool ay gaasta gaarigu keentay daloolkaasi oo ku baahay guud ahaanba gaariga gudihiisa Allah u naxariisto labada qof ee ku dhintay xamse iyo waliba huda maanta markaasi isniintii gelinkii dambe aan idhaahdee maanta oo isniina ayaa la soo saaray xaqiiqda jirta marka hawada ka soo baxday gaariga ee carbon monoxide-ka ayay nuugeen muddada hawadaasi ay qofka bini'aadamka ku dishaa waa 5 daqiiqo ilaa 10 daqiiqo inta u dhaxaysa baaritaankii lagu guda jiray kadib waxa markaasi la ogaaday in ay ku dhinteen carbon monoxide oo markaasi lagu dhiman karo 5 daqiiqo ilaa 7 daqiiqo inta u dhaxaysa oo qofku ku dhiman karo waqtina aanu siinaynin sida ay dhaqaatiirtu tilmaamayaan haddii daaqada ay iska furi lahaayeen waxa suurtagal ahaan lahayd ama bay iska naaqusi lahaayeen muraayada in ay sidaasi ka sahlanaan lahayd haddana tii Ilaahay baa ku timid oo way ku dhinteen sida la xaqiijinayo markaasi waxa la tilmaamay in markii ay dhinteen calaamadihii lagu arkay ay kamid ahaayeen matagaasi oo la sheegay inay labadooduba matageen oo suntani ay ka matajisay sidoo kale waxa la tilmaamay qofku markuu arrinkaasi carbon monoxide-ka uu ku dhinto inuu yeelanayo calaamado dhowr ah calaamadahaasi waxay noqonayaan indhaha qofka oo buluug noqda diyihiisa oo buluug noqda iyo qaybo kamid ah jirkiisa oo buluug isku bedela calaamadaha labada marxuum ay yeesheen oo ay kamid tahay mataga oo ay kamid tahay naqaska badan ee calooshooda ka soo baxay oo ay kamid tahay cidiyaha iyo haday noqoto indhaha iyo haday noqoto jirka intiisa kale oo yeeshay midabka buluuga dhaqaatiirtu way tilmaameen in arrinkaasi iyagana laga helay laakiin waxay bulshadu isla dhex maraysay oo marka aad social media aad gasho dad badan oo xataa labada qof ee geeriyooday ceebaynaya arkaysa oo kula wax xun bay sameeyeen ilaahay baa og wax la waxay sameeyeen
ilaahay uun baa ka warhaya cidimo oga laakiin in dadka lagu dambaabo oo dad geeriyooday oo dhintay magac lagu raadiyo aad baan uga xumahay labada qof ee dhintay allah u naxariisto qaabkii ay u dhinteenna waa tamaanta oo isniina la soo shaaciyey waxa jira dadyow si qabaa'ilah iyagu arrinkan uga faa'iidaysanaya oo in laba qabiil oo inantiyo inanku ay ka soo jeedaan amaba dadyow kale lagu tilmaamayo arrinkaasina waxaan odhan lahaa ma fiicnaha la iska daayo labadan qof baaritaankii markii lagu sameeyey waxaa la ogaaday in gaadhigaasi arrin xaalad oo ka timiday ay ku dhinteen marka dhakhaatiirtu markay baaritaanka sameeyeen markiiba ilaa dhowr cisho iyadoo lagu guda jiray haddana waa la soo shaacbixiyey waana la sheegay waana la tilmaamay waxaynu odhan lahayn markaasi qof dhintay ilaahay unbaa og wixii hawsha ay gaadhiga ugu jireen inagu waxba kama ogin laakiin in magac lagu raadiyo waa doqonnimo allah u naxariisto ayaynu leenahay qaabkii ay u geeriyoodeenna maadaama la ogaaday anigu aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay in la ogaado qaabka ay u dhinteen waayo aniga laftaydu waxaan islahaa malaha dad baa dilay macadow bay lahaayeen fikirkaas aniga laftirkayga iga dhaadhacsanaa laakiin markii dhakhaatiirtu sheegeen iyo dowladda magaalada Hargeysa ay soo shaacbixiyeen bas waxaan ogaaday in markaasi ilaahay inta ugu tala galay inay ku dhintaan iyaga laftirkooda haday ogaan lahaayeen waxa laga yaabaa inay gaadhigaasi fuuleen laakiin waa arrimo kadisa oo boqolkiiba laba laga helo adduunka marka ay dhacdo allah u naxariisto akhyaaray barnaamijkani su'aal ayaan soo dhignaa su'aashaasi toddobaadkan su'aashii u dambeysay soo dhignay waa laga jawaabay qofkii ka jawaabayna kaarkiisii uu nagu leeyahay waxaanu ka mid yahay akhyaarta taageerada noo haysa annaguna aad iyo aad ban markaas ugu mahad celinaynaa sida quruxda badan uu uga jawaabay su'aashu waxay ahayd qof aabaha iyo hooyada dhaleen oo aan walaalka ahayn wuxuu noqonayaa waa walaasha hooyada iyo aabaha baa dhalay laakiin iyadu walaalka laguma tilmaamayo walaasha baa lagu tilmaamaya jawaabtaasi khiyaarteeda ka jawaabtay wiil ayaa ka soo jawaabay walibana wiilkaasina aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay 200 ee bir ee kaarkiina waanu siinayna su'aasha markaasi haddaan soo wado ayaa waxay noqonaysaa waxaad sheegtaa wax qofka indhaha la u arko la doo fiirsada waa wax qofka indhaha li u arko qolo waxaasi qofka indhaha li u arko muxuu noqonayaa jawaabtu waa xaqiina taageeraduna waa xaqiina aad iyo aad baad u mahadsantihiin taniyo intaynu ku kulmayno barnaamijkani barnaamijka xiga waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wareega waa macaan